عليكم أصحابتا كسو دواada channelkayga waa Muna Corner waxaa idin rajaynaa insha Allah khayr iyo caafimaad meel walba aad joogtaan Ramadaan kariim kul caam antum bikhair Ramadaanka Ilaahay noo fududeeyo soonkiisa Ilaahay naga aqbalo soonka iyo salaada iyo acmaasheena saalixa waxaa rajaynaa insha Allah fiidiyoyaashii maxay ahayd oo dietka inaad maxay ahayd ka istafiideen wixii diet oo maxay ahayd u baahan tihiin channelka waad ka helaysiin marka waxaa idin leeyahay soo dhawaada subscribe noo saara like iyo share dhiirgelinta aad dhiirgelin bay inoo tahay waxaa rajaynaa insha Allah wax faa'iido inaan idin soo gudbiyo idinkana waxaa idinka rajaynaa insha Allah inaan anigana igu caawisiin xagga like-ta iyo share-ka iyo subscribe-ka maanta waxaa idin wada waxaa waaye laba qodob oo muhiim ah oo idinka caawinaya dietka labadaas qodob haddaadan maxaad aad isticmaalin ama aad maxaad ku soconin dietka maxaad ama miisaan dhimista faa'iido kama helaysid ama maba gaaraysid hadafka aad leedahay marka qofkii jecel diet iyo miisaan dhimis maxaad channelka waxaa leeyahay waxyaabo badan faa'iidooyin badan oo aad ka helaysaa YouTube wuxuu ii sheegaya yani dad badan baa jiro oo fiirsada laakiin subscribe ahaan subscribe wax ma aha waa free gaar walaashiin ku caawinaysiin marka hanagala baqeelina marka haddaad rajaynaysid insha Allah diet iyo miisaan dhimis inaad ka heshid maxay hadafkaagana gaartid oo miisaan fiican aad gaartid videoga ilaa aakhirkiisa ila dhamayso idin leeyahay la wadaagayo idin leeyahay waa muhiim markaa rabtid diet inaad bilowdid oo aad iyo aad idinkugu dhiirgelinaya inaad maxay ku camal fashin ama aad yani maxay samaysiin waxa waaye markaad diet bilaabaysid qofna ha u sheegin inaad diet bilaabaysid adigoo aamusan dietkaaga iska bilow waxaa jiro حديث معها لكن وحاوى أثر أما محاها يعني حديث معها لما شيكر لا إنه حديثها لكن حالها استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان يعني وحيابها سمينيسين أما وحيابها أمورهن أربتين إنها سميسين وحاكو لك كالميستين عامصنان أما قرسودي لك كالميستا وحاولها هاي مهم إنه تهي قفك مركو دايت بلعبها إنه قفنا أشيغن حاجر داي وحان جركا قواي wax adiga ku quseeyo waa ay kowda hore marka adiga kaliya unba maxay choice kaas leh inaad maxay ahayd diet bilowd ama aadan bilaabin midda kale choice-ka waxa waaye marka adiga diet aad bilowdid dadka waxa u leeyahay yani ha u sheegin dadka marka diet bilowdid dadka waxa leedahay dad baa jiro markay diet bilaabaan waxay leeyihiin diet baa bilaabayna okay dadkii oo dhan maxay attention ha heblo diet bay bilowday ama hebel diet buu bilaabay okay qofkii waxba iska bedeli kara adigii waad jiran kartaa dietkii ma wadi kartid ama waxba iska kaa bedelaya dadkii baniaadamkii waxaa la isleeyahay haye heblo aaway dietkii aawad haye markaa wax cuntid ama wax maxay yani cuntada maxay dietka wax ka gadisan haddaad doontid ama rabtid inaad maxay aad cuntid waxaa lagu leeyahay aaw dietkii ay aaw qofkii maxay iscaateynaya marka commentskaas iyo waxyaabahaas hadalkaas lagu dhahayo waxaa ka haboon marka horeba inaad waxaaga iska qarsatid oo aadan u sheegin qof inaad diet bilaabaysid waxyaabo badan faa'iidooyin badan aad ka dareemaysaa maxaa jira wax adiga hadaf horta maxay ahayd ku quseeyo waaye wax walba adduunka yani maaha kaliya dietka waxa adiga markaa rabtid inaad wax qabsatid oo muhiim ah ama project ahaada ama diet ama wuxuu ahaadaba waxaas adiga private ha ku ahaadaan qofna hala share garaynin marka bilowdid dietka qofkii ku dhaho مثلا يعني wax cunto macaan ama cunto maxay ahayd oo dietka ahaan waxaad dhihi kartaa yani waa dhirgsanahay ma rabo hadda wax soo cunay saasaa dhihi kartaa waa yani maxay ahayd si maxay ahayd qofka uu isdhihin qofkan maxaa cunto muxuu u diidaya marka waxaa aad idinkula talinaya diet haddaad rabtid inaad bilowdid qofna hala wadaagin qofna u sheegin decisionkaas ama qaraarkaas adiga kugu ekaado hadhowdii haddaa meel ka gaartid dadka ayagaaba kusoo dhahaayo heblo waad caatooday hebel maxay miisaan baa kaa dhacay dadka ayagaaba kuu soo sheegaya marka adigii waxaaga hadduu kugu qarsoonaa markii hore oo aadan qof u sheegin hadalkaas markii maxay commentska haddii lagu siiyo maasha Allah ayaa waad caatooday maxaa dhacay wax ma cuntid miyaa saasun baa lagu leeyahay laakiin adiga waxaad dhihi kartaa macno mala caadi waxba yani waa fahanteena umalaynaa marka haddaad go-aansatid inaad diet gashid ama diet bilowdid qofna hala share garayn runtii waa qodob aad muhiim u ah
anigana aad baa maxay ahayd uga istifiiday wax kastay ku xiran tahay noloshaada arabtid inaad maxay ahayd meel heer ka gaartid ama project ku ahaado ama mashruuc ama shaqo ama wax walba hala share gareyn qof maxaa jira waxa haddaad share gareysid ama dad badan u sheegtid badanaa waxa ma tooso ama hadduu tooso xataana yani sidii la rabay ma noqonayo marka taas hama ogaanin diet haddaa bilaabaysid qofna arinta labaad qodobka labaad oo muhiimka ah oo idin la wadaagayo haddaa rabtid inaad diet samaysid oo aad idinkugu dhiirigelinayo waxaa waaye dietka choicekaaga ha ahaado adiga يعني waxa adiga maxay hada choice aad maxay samaysatay ama adiga ma aha inuu qofku dhahay diet baad u baahan tahay ma aha inuu qofku dhahay waad cayilan tahay ma aha inuu qofku dhahay yani wax adiga naftaada xaggaaga qaraar adiga ka socdo inuu ahaabaa loo baahan yahay maxaa jira dhe hadduu maxay hada sababta saxda ahna inaad u samaysid waayo dietka ma aha sababta yani waxaa rabaa inaad sacaateeyo waxaa يعني هبل بقى إدهاي أما محاهد حاجة إدهاي أما حالفة يعني سبب صحة إنا أهيستيد أو محاهد أو مهم أو حوله عرفت الدايت كإنا محاهد أسميسيد محاجرة السبب تاع الصح ده أما قرار كاس مركا قاعدة يسيد وحاس ومحاهد وحي كل رجالين لها أما محاهد قناعات قصين لها واي مركا واحد دوي هاي السبب أو محاهد أو مهم أهان هديت هاي أما واحد أديك محاهد نفط هذا كالصعد قرار أديك نفط هذا كالصعد معها قف باكو هاي waad cayilan tahay waad cayishay waxsaas camal qof hadduu ku dhahay markaas diet baa u baahana inaad sameeyo maaha waxaa la rabaa wax qaraar adiga maxaa ahaado naftaada ahaantaada gudahaaga inuu maxaa ahaado ka socdo waa maxaa jira dhe markaa bilowdid dietka journeygan ama maxaa ahaado marxaladan aad ku socotid waxay kaaga baahan tahay adkaan waxay kaaga baahan tahay sabar waxay kaaga baahan tahay maxaa ahaado mar walbaba in aad maxaa ahaado u dulqaadatid marka sababtaada ama qaraarkaaga hadduu adiga wax naftaada qaraar adiga ka socdo hadduu yahay ama gudahaaga ka socdo oo maxay ahayd aad ku qanacsan tahay waxa ugu muhiimsan inaad ku qanacsanaatid waa marka haddaad adiga ku qanacsan tahay qofka maxay ahayd meel baad ka gaaraysaa hadafka meel baad hadafkaaga waad gaaraysaa yani wax kaa celinaya malaha laakiin sabab sax haddaad markii hore ugu socon ama maxay ahayd qanaacad sax markii hore aadan lahayn meel kama gaaraysid marka taas waa muhiim inaad maxay marka hore markaa diet rabtid inaad samaysid sababta saxda ama maxay ahaado choiceka inuu ahaado wax adiga gudaha ka socdo adiga ay leedahay aniga ahaan waan u baahanahay inaad maxay dietkan sameeyo tusaale ahaan dad baa maxay ahaado idhahaayo aniga miisaankayga marka maxay ahaado 60 markuu gaaro yani waa iska soo maxay ahaado yani miisaan igu batay waay marka dadka qaar waxay ku leeyihiin allah 60 kaliya 60 wax ma aha يعني dadka isku mid ma aha aniga yani qof walba maxay hada miisaanka dadku kala mid yani isku mid ma aha 60 qof wuxuu u yahay normal qofna wuxuu u yahay maxay overweight buu u yahay yani qofka waxay ku xiran tahay maxay ahayd dhererka waxay ku xiran tahay dhismaha korkiisa iyo waxaas marka aniga waxa isku arkaa marka 60 gaaro ina maxay overweight ahay ina maxay ahayd yani miisaan ina iska dajiyo u baahanaa dadkan waxay ku leeyihiin allah maxaad isku caateynaysaa maxaa dhacay isdilaysaa yani maxay ahayd qof horta marka hore waa choicekayga marka labaadna aniga yani anaa og maslaxadayda aniga maxay ahayd anaa u baahan miisaanka ina iska dajiyo ma aha dad dartiisa ina maxay ahayd qof markuu dhaho uma baahnid inaad saacadaysid markaas hadalkooda inta maqlo iska joogo iska dhaafo maxay dietka marka adiga hadafkaaga inaad ogaatid waaye marka hore qaraarkaagana inaad sax ku ahaado waaye saa marka qofkii kula soo hadlo oo maxay ahayd wax ku dhaho qanaacadaadaas sida wax uga bedelmin marka arintaas aad bay muhiim u tahay inaad ogaatid markaa rabtid diet inaad gashid sababta u galaysid qanaacada choiceka maxay tahay marka taas aad qodobka u dambeeya oo xagga dietka idinla wadaagayo waxaa waaye mar walbaba korkaaga marxalad buu marayaa tusaale ahaan dietkii aad maxay bil ka hor samaysay ama week ka hor samaysay bishan kale haddaad isdhahdid samee
jirkaagii sidii hore ma aha, mar walbaba marxalad buu galaa jirkaaga. marka ha isdhihin isla markii wixii nidaamkii aad ku socotay ama dietkii ama qaabkii aad ku socotay mar walbaba maxaad wax iskama bedelayo. jirka wuu baranaya, wuu fahmaya. marka wixii kalkii hore maxaad miisaan kaa dhimay, ha isdhihin markaan dambe haddana haddaad ku noqotid miisaan buu kaa dhimaya. jirka maxaad yani aad buu maxaad u fahmaya. marka waxaa loo baahan yahay mar walbaba inaa yani u gedisid, mar walbaba maxaad upgrade inaa u samaysid. laga yaaba maxaad dietka ukunta qofkii sameeyay maxaad bil ka hor, bishaan hadduu sameeyo miisaankii oo bishii hore ka dhacay bishaan inuu iska dhacin. marka jirka waxaa la rabaa mar walbaba marxalad buu maraya, mar walbaba marxalad buu maxaad u tagaya. marka waxaa la rabaa mar walbaba marxaladaas inaa la socotid, mar walbaba maxaad inaa wax mar walbaba bedeshid. yani maxaad dietka laftarkiisa isdhihin haddaan ku socdo bil dhan laftarkiisi maxaad baa miisaanku iga rida bishii hore bishaan uu iga ridaya. waxaa loo baahan yahay mar walba inaad jirka u bedeshid, ama diet ahaan ama exerciseka ama jimicsiga ama wuxuu ahaadaba. marka waxaa la rabaa inaad la socotid. jirka upgrade buu mar walba sameynaya, jirka aad buu maxaad u fahmaya waxyaabahan. yani maxaad cuntada la cunayo ilaa muddo hadduu u barto kadib wax iskama bedelayo, maxaad waxba iskuma dhibaayo, xayrta maxaad kaama dhacayso, miisaan kaama dhacayo. marka waxaa la rabaa mar walbaba inaa maxaad bedel ama aad samaysid ama afgadis maxaad ama yani wax un aad ka bedeshid. yani qof walbaba asagaa jirkiisa og, asagaa maxaad marxaladda adig ku jirtid dietka. laga yaaba maanta bishaan dietka maxaad timirta ama ukunta haddaad samaysay miisaankii hore kaa dhacay bishaan kaama dhacayo. marka adiga waxaa la rabaa mar walbaba maxaad inaad wax ka bedeshid. laga yaaba maxaad jimicsiga inaad badisid, laga yaaba maxaad inaad haddaa dietka markaa maxaad muddo ku socotay miisaan kaa dhici waayo inaad u baahan tahay break inaad qaadatid, oo u baahan tahay inaad maxaad muddo diet la-aan aad joogtid, kadib dietka u laabatid, kadib jirka maxaad miisaan ka dhacaya. marka mar walbaba waxaa la rabaa inaad maxaad aad la socotid marxaladda adiga maraysid, jirkaaga marxaladuu maraayo. bil ka hor qofkii maxaad dietka ku socotay bisha labaad isla markii wixii maxaad haddaa isdhahad waa ku soconaya miisaankii kaama dhacayo laftarkiisa. marka sidoo kale soonka la isku caateynaya xataa siyaam mutaqatica markaa ku socotid muddo oo is aragtid inaad maxaad oo miisaan uu kaa dhacay kadib miisaan uu kaa dhacaynin, waxaa la rabaa inaad joojisid, break qaadatid. dietku ahaada xataa nooca ku soconaysid dietka ama keto ama wuxuu ahaadaba inaad joojisid muddo oo break qaadatid, kadib ugu soo laabatid aad aragtid maxaad jirka siduu u aqbali doono, sidii maxaad miisaan uu kaa dhici doono. marka mar walba waxaa la rabaa inaad la socotid xaaladaada upgrade-ka jirka maxaad sida miisaankaaga dhacay. qodobadaasi ahaayeen waxyaabaha ugu muhiimka ah dietka markaa isticmaalaysid ama diet ama miisaan dhimis ama maxaad ku socotid. waxyaabahaas aad maxaad muhiim u yihiin. marka hamogaanina mar walba waxaa idin leeyahay like iyo share subscribe. ha iga ilaabina fiidiyoyaashan. waxaa rajeynaa maxaad inaa faa'iido idinkugu soo gudbiyo, anigana aad igu caawiseen subscribe-ka iyo share-ka iyo asxaabta inaa la wadaagtiin like-ta iyo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo free ah. waxba idinkama dhibayaan aniga, laakiin wax weyn bay ii yihiin. channelkana aad bay maxaad u caawinayaan. marka khayr aa idin rajeynaa meel walba aad joogteen insha allah. salaam.